iyadoo maalinimadii shalay ay kala saxiixdeen heshiis u dhexeeya maamulka Khaatumo ee Somaliland ayaa maanta waxa ay dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ay ka dhiibteen aragtidooda waxaana ay soo dhaweyn diiran u sameeyeen heshiiskaasi waxaana ay ku taageereen maamulka Khaatumo in hore ay u socdaan. magacaygu waa Maxamed Maxamuud shalaytana qodobadii ka soo baxay waxaan u aragnaa oo 5 qodob ah inay yihiin wax aad loogu faano waana soo dhaweynaa waa taageersanahay waxaan u leenahay cid kasta oo wada hadallada ka hor imaanaysa ka fiirsato ra'yi waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxay ku wacan tahay wixii khaladaad ee kaba muuqda hadii jiraan wax ka muuqda in la saxo waxay la tahay Cali Khaliif inuu wuxuu jeedaa ka lahayn dad isaga u leeyahay uu sawadan ilaa iyo maati dhurdaha ku galay taga erigo ilaa iyo maantana dad dhulbaanta uu raadinayo marka waxa leeyahay ninkii raaci waayo aday ku taala anagu waa raacayna waan ku raacsanahay baqof waxaan si kaliya laaba u soo dhaweynaya heshiiskii ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Khaatumo iyo maamulka Somaliland anigoo shacabka gobolka Sool waxaanu soo dhaweynaynaa qodobada ka soo baxay ee ka kooban 5 qodob oo ah dalka iyo dadka danta u ah siyaasadda dadka waxa uga wakiila Khaatumo haday tahay madaxweyneysa haday tahay xukuumadda haday tahay golaha baarlamaanka ummaddu dadka ay idmatay waa inay ku kalsoonaataa Khaatumo ayaa ka ah mas'uul uga ah dadka xaq dhanka siyaasadda arrimaha masiiriga ah ee dantu ku jirto ee ay ka wada hadleen ee dalka iyo dadka dantu ugu jirto boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa sababtu waxa weeye dadku khamaar kuma jiri karo Somaliland iyo Khaatumo inay khamaar ku jiraan maaha waa in dantooda ay ka tashadaan waxa weeye horta markii hore waxaan doonayay oo ila wanaagsanaa annaga iyo cidda aan wada degno oo dariska nahay waxaanu kaliya yeelanahay waanu barqadii ka fadhiisano sida ummadaha kale balse haddii ay badiba shughul ku batalaqsadaan bulshada lagama hadho wada hadalkii u dhaxeeyay labada administration ama labada maamul Khaatumo iyo Somaliland waan soo dhaweynaynaa qolo walba cid bay dirsataa annaga waxa naga mas'uula golayaasha Khaatumo golihii madaxtooyada iyo baarlamaanka oo madaxweynaha iyo gudoomiyihii joogan ayaan matala waanu ku qanacsanahay ilaa hadda qaabkay wax u wadaan ragaana waa ragii soo halgamay ninaan soo halgamin oo meelaha iska marmaraya anagu waxba weydiin mayno laakiin ragii soo halgamay waa ragaas xaqiiqda anagu waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo wada hadlaaba heshiiye mar haday dadku wada hadlaan waa heshiinayaan hadallada ka socday magaalada Hargeysa ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Khaatumo runtii qodobbaa ka soo baxay qodobadaasi aragtida markaan qiimeeyo maqaamkii dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Daga ay ka filayeen aan waxaan qabaa in yar laga hoos dhacay wax badan aanu filaynay oo aan tabanay inaan maqaamkeedii la gaarin laakiin wada hadalladu wali waa harsan yihiin shirka Burco dastuurka wali lama furin wax badan baa la salugsan yahay waxaan kula talin lahaa qolada Khaatumo ee hadda Hargeysa joogta inay ku soo noqdaan deegaankii dadkana talada ku soo celiyaan ka dhiibto wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo guud ahaan waan soo dhaweynayaa sida systemka wax u socdaan dadkuna waxa la soo dhaxtaa qofka ama lama diro ninka madaxweynaha Cali Khaliif iyo waftiisa dadkana mas'uuliyadeedu u hayaa barnaamijkan iyaga u xil saaray isna uu u shaqeynayaa socday hadaan nahay shacab weynaha Laascaanood aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa hadalka bilowday wali gabagabadiisa la gaadhin wax wanaagsan baanu ka rajaynaynaa nahay shacab weynaha ku nool gobolka Sool waxaan soo dhaweynaynaa maamulka Khaatumo iyo maamulka Somaliland wada hadalkoodii aad baan u soo dhaweynaynaa hadaan nahay shacabka gobolada SCC oo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wada hadalka Khaatumo iyo Somaliland weynaha iyagana waanu taageersanahay waxaan ku taageersanahay danta iyo dadnimada uu noo wadaan taageersanahay aad baan taageersanahay go'aanka Cali Khaliif ee Somaliland iyo Khaatumo ay ku heshiiyeen waxa ku wanaagsan nabadgelyada iyo islaaxa waxa weeye aad baan taageersanahay